مسؤولين وزارة waxbarashada gobolka Sanaag ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo 30 arday oo ka qalin jabisay dugsiga waxbarashada gaarka ah ee Daali magaalada Ceergaabo. Ardaydan oo dhameystay koorsooyinka maadooyinka luqadda Ingiriiska iyo xisaabta ayaa waxa ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Daalo Maxamed Warsame Maxamuud oo ku dheeraaday sooyaalka taariikheed ee dugsigooda. dugsigani 20 sano uu jiray isagii dugsiyo kale oo la mid ah waxay ka qayb qaadanayeen horumarka waxbarashada ee gobolka. inkastoo waxbarashadu ay sanadahan dambe gobolka hoos uga yara dhacday oo maartay muddooyinka 8 sano laga joogo ay ardaydu sidii hore xagga waxbarashada ay aad uga hooseeyaan. marka su'aasheenu isweydiin karnaa waxa weeyaan waliba luqadaha maartay ardaydu sanadahan dambe aad bay uga hooseysaa xagga Carabiga iyo Ingiriiska. luqadaha waliba marka ardaydu dadaalkooda ugu badan waxay dadaalaan fasalka 5aad ilaa fasalka 8aad. ardaygu markuu fasalka 8aad dhaafona ay dugsiga sare u gudbo oo iska daaya luqadaha iyo waxa uu yiraahdaa waxa ku baranayaaba waa English maxaa luqad bay ugu wataa hadhowna waxyaabaha aynu ugu liidano waxbarashada aadka loogu hooseeyo waxa kamid ah luqadda oo jaamacadaha laftoodii ardaydu ay ku liidato birdhowto wasaaradda waxbarashadu go'aan baa la gaaray in kor loo qaado ardayda luqadaha waliba Ingiriiska Carabiga iyo Soomaaliga in saddexda luqadood kor loo qaado ayaa sanadkan lagu tala jiraa. waxa kale oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda gobolka Sanaag Faarax Maxamed Gudane xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka madaxa waxbarashada gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cali Dheelood Cuqaal waalidiin iyo mas'uuliyiin aad u tiro badan. qaar ka mid ah ardayda qalin jabisay ayaa iyaguna dhinacooda halkaasi ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen dugsiga Daalo. ugu dambeyn munaasabadii uu halka shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardaydii dhameysatay koorsooyinka waxbarashada ee Ingiriiska iyo xisaabta. Barkhad Maxamuud Geedi telefishinka caalamiga ee Kalsan Ceergaabo.